kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada warka maanta warbaahinta ogaal qodobada wararkeena aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid noqon doona duqa Muqdisho degniin culus u diray shacabka ku nool gobolka Banaadir. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shacabka Muqdisho ku sheegay inay afduuban yihiin. madaxweyne Farmaajo ila dhaqaale muhiim ah kala wareegay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. wararkii ugu dambeeyay shirka uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo ayaa qayb ka noqon doona wararkeena maanta ee warbaahinta ogaal iyo Sheekh Weyn Sheekh Umul oo fariin culus u diray madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo waliba Puntland. qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo xiiso leh ayaan daawadayaal ku soo qaadan doonaa warka maanta ee warbaahinta ogaal. haddii aanu daawadayaal ku bilowna faahfaahinta wararkaasi ee duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu faray bulshada caafimaadka inay dhaga nuglaadaan fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta wada maamulka gobolka Banaadir looga hortagayo faafitaanka caabuqa COVID-19. duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciqaab la kulmi doonaan ciddii fulin weyso awaamirta ay ka soo saartay wasaaradda caafimaadka la xiriirta cudurka corona. xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa ka socda dadaalo bulshada looga wacyigelinayo khatarta cudurkan loogu sheegayo qaabka ugu habboon ee looga hortagayo. sidoo kale maamulka gobolka ayaa waxa uu bulshada aan heli karin agabka looga hortago COVID-19 u qaybiyay taasoo qayb weyn ka qaadanaysa la dagaalanka faafitaanka cudurkan ee caafimaad darada ee COVID-19. coronavirus ayaana saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay guud ahaanba magaalada Muqdisho iyadoona laga dareemayo saameyntiisa guud ahaanba dalka. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta jeediyay khudbadda sanadeedka dastuuriga ee baarlamaanka ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo isugu jira amniga, miisaaniyadda, masuqmaasuqa, siyaasadda guud iyo doorashooyinka Soomaaliland. Muuse Biixi ayaana sheegay miisaaniyadda Soomaaliland 51% ay ku baxdo amniga iyo nabadgelyada halka 48% ay tahay baahiyaha kale oo dhan. sidoo kalena waxa uu sheegay doorashooyinka Soomaaliland ka qaybgali doonaan 993 musharax waxa uuna kaloo uu soo hadal qaaday masuqmaasuq uu xusay in ilaa 31 mas'uul lagu soo eedeeyay. waxa uuna sheegay in la sii adkeyn doono sharciga lagu qaadayo mas'uuliyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ka tirsan dowladda Soomaaliya kadib marka cafis soo dalbadan. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka magaalada Muqdisho ku tilmaamay inay afduuban yihiin isagoona tilmaamay dadka talada ay qaadayaan tallaabooyin cadaawad oo dadka kala fogeynaya. shacbiga Muqdisho iyaga afduuban dadka talada u hayana waxay qaadayaan tallaabooyin cadaawad oo dadka kala fogeynaya. maanta Muqdisho dowladii hore waqtigeedii wuu dhamaaday, dowlad cusubna looma dooran, sharcigana uma kordhin, haddana uu fadhiyaa waana maamulaya ayuu yiri Soomaaliland. waxa uuna Muuse Biixi Cabdi si adag u weeraray madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu sheegay inuu talada afduub uu ku haysto isla markaasna uu sheegay inuu ka dhamaaday muddaxileedkii dastuuriga ee loogu doortay inuu hogaamiyo dalka. madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uuna shacabka magaalada Muqdisho ku sheegay inay noqdaan kuwa iska dulqaada buu yiri. waxa uu ugu yeeray buu yiri gumaysi aan meelna loo dayenin. magaalooyinka Beled Xawe iyo Doolo oo ku yaala xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalalka Kenya iyo Itoobiya ayaa ahaa magaalooyinka ee dhaqaale xoogan leh ka soo geli jireen maamulka Jubbaland kuwaas oo looga qabsaday sanad ka hor. kumanaan lacag ayaa maalin walba laga qabtaa labadaas magaalo ay midiiba maraan ama ay soo galaan gaadiid ku dhow 60 gaari oo xamuula iyo waliba adeegyo kale wadada, waana sababta ay muhiim ugu yihiin labadan magaalo. gobolka waqooyi bari dalka Kenya adeegyada gala ee ganacsiga waaweyn waxaa laga soo qaadaa suuqa Bakaaraha ee Soomaaliya loogana keeno Mombasa ama meelo kale oo Kenya. maalintii ugu yaraan 30 gaari ayaa ka gudubta xadka Soomaaliya oo qaarkood laga qaado 500. waa magaalo muhiim ah. Doolo ayaa la mid ayuu yiri xildhibaan ka mid ah baarlamaanka maamulka Jubbaland oo gada laga soo doorto. Doolo iyo Beled Xawe lacagta uu Axmed ka heli jiray waxay ku dhow yihiin uu ka helo dekada ee airportka Kismaayo. waa magaalooyin muhiim ah. Axmed iyo wasiir janan ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaankan oo aqriyay magaciisa. xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland isla markaasna baarlamaanka ka soo gala Beled Xawe ayaa warbaahinta u sheegay in hadda lacagta kumanaan kun ah ee laga helo magaalooyinkan lagu shubto bangi ay leedahay dowladda Soomaaliya isla markaasna ay maamusho wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya. wasiirka amniga Jubbaland Axmed Cabdirashiid Jan ayaa dhowr jeer waray magaalada Beled Xawe
iyadoo ay dagaaladaasi ku dhinteen 10 qof kumana guuleysan inuu dib ula wareego ciidankii uu isaga maamulay. sheekh weyne sheekh maxamed cabdi umul ayaa waxa oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed uguna caansan ayaa waxa uu madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubbaland uu baaqay inay ka qayb galaan shirka arrimaha doorashada oo aysan shuruudo ku xirin. masaaliixda ummadda u tanaasula, shuruudahana meel iska dhiga, miiska imaada oo in laga wada tashado ogolaada masaaliixda caamka ka shaqeeya yiri. Sheekh Umul ayaana sheegay in Dani Axmed Madoobe ay muuqato buu yiri qaabkaad u dhaqmaysaan aad qayb ka tihiin mushkiladda dalka ka jirto. waxaad shuruudo badan hor dhigteen, wadahadaladii ummadda wixii u suuroobi lahayd aad ka soo hor istaagteen, sax maahan ayuu yiri. isbuucii hore ayuu sheekha fariintan la mid ah waxa uu diray madaxda mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu baaqay inay ka shaqeeyaan masaalixda caamka oo danahooda gaarka ah meel iska dhigan, isagoona ka digay dibadbaxyo ay suurtagal tahay inuu dhiig ku daato. waxa uuna sheegay in loo baahan yahay buu yiri in ay dadku ka feejignaadaan wax kasta oo keeni kara dib u dhac mar kale dalka. waxa laga hadlayaa inay ahayn wax caadi ah. waxyaabaha laga hadlayo oo maantay shirkeena jirayd uu ku saabsan yahay waxa ay tahay khatarta ay wajahayaan bulshadeena Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho. marar badan ayaan ka hadalnay, aan la dardaaranay bulshada, laakiin waxaad moodaa dardaaranku inuusan bulshadeena ku socon. maantay marka bal inaan mar kale muujino khatarta jirta, dardaara wada jirna aanu soo jeedino, sidaas ayay tahay ujeeddada kulankeena maanta. waxaad ka wada dheregsan tihiin cudurkan COVID-19 ama coronavirusku inuu ku faafay guud ahaan dunida. waxaad ogtihiin dadaal la sameeyey, dalal aad u halakeeyey, dadaal badan oo ay sameeyeen darteed inay ka bogsadeen oo maanta aan laga helayn xitaa hal kiis inaan laga helayn. waxaad ogtihiin kuwa uu aad u dilooday welina sii dilaayo inay jiraan. waxaad ogtihiin COVID-19 inuu bilowday 2019 dabayaaqadeedii, aadna uu u darnaa 2020 halkaana wuu soo gaaray xilligaas. dadaal midka hadda socda ka badanna la sameeyey, lagana bogsooday dhab ahaantii. dadaaladaa la sameeyey waxaa ka mid ah in duulimaadyada la joojiyey ayaa ka mid ahayd, in la sameeyey xarun karantiil oo dadka safarada ku yimaada ama dadka isaga shakiya cudurkaas lagu xareeyo ayaa la sameeyey. dadaalkaas marka intaas kaliya ma ahayn, waxaa la buufiyey magaalada oo dhan ayaa baabuur waaweyn lagu buufinayay. wacyigelin wasaaradaha hadda gadaashyada taagani ay ka wada qayb qaateen ayaa la samaynayay. ambalansooyinka, dabdamisyada, yacni dhalinyaro wadata yacni haamo dhabarka ku wadata, waxaasoo dhan waa laga wada shaqaynaya. dadaalkaas ilaahay subxaana wa tacaala mirihiisa uu soo bixiyo waa laga bogsooday. isagoo ka khatarsan ayaa weybkii ama hirkii labaad ee adduunka ku soo noqday ayaa haddana mar kale soo gaaray dalkeena, gaar ahaan magaalada caasimadda ah. arrintaas ayaan ka hadalnay, maantana ugu talagalnay si intii hore ka qaylo dheer inaan bulshada gaarsiino. bulshada waxaa looga baahan yahay marka aan u sheegno khatarta jirta, talooyinka la siinaayo ama wasaaradda caafimaadku ay bixinayso ama guud ahaan mas-uuliyiinta dawladda ay bixinayaan, inay u dhaga nuglaadaan oo ay qaataan. sidaas ayaa la doonaya. maalan markii hore waxaa la yidhi goobaha ganacsiga ha laga ilaaliyo dadka ka adeeganayaahi inay face mask ama afxir la'aan inay galaan ay ka adeegtaan. suuqyada waa sidoo kale. dadka goobta ganacsiga wax ku iibinayana inay ayaguna sidoo kale ay afka xirtaan oo ayan isu dhowaan oo gacmahana la dhaqdo. wacyigelintu intaas ayay ahayd.
waa sii badatay marka kiisaskii ama dadkii cudurka u soo dhacayay waxaa la xiray jaamacadihii iyo iskuulladii waxaa la joojiyey dhammaan goobihii la isugu imaanayay sidii aroosyada iyo meel kastoo bulshada ay isugu yimaadaan waxaa haddii khatartu ay sii socoto waxaa la xiri doonaa duulimaadyada laakiin ilaa hadda dawladdu go'aan ma qaadan lagu xirayo duulimaadyada maxaa yeelay waxaa la rajaynayaa inay dadku u dhega nuglaadaan wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee mar walba la bixinayo weli waxaa jira iskuulladii la yidhi ha la xidho qaar furan ayaa jira waxaa jira dadkii la yidhi marka aad waddada maraysaan ama aad bi'el ama bajaad aad raacaysaan ha idin xirnaado weli uma xirna goobihii isu imaatinka qaaraa weli la isugu yimaadaa dad badan ayaa weli jamaacada ku ooga masaajidada qaar badanaa ka weysaysanaya masaajidyada oo la yidhi ku soo weysayso gurigaaga sajaadada yare lagu dukadana adiga hore u soo qaado waxaasoo dhan waxay ahaayeen yacni jameecaduna ha kala fogaato oo yaysan isku dhowaan talooyinkii la baxshay ayay ahayd laakiin haddana waxa laga qaatay culummo iyo caami waa yarta waxaan rabnaa mar kale inaan cod dheer ugu sheegno bulshada in talooyinka loo dhega nuglaado maxaa yeelay meel kale ha fiirine culimmadu masaajidka ay ku tukato meeqa qof ayaa maalintii janaase lagu tukadaa awalse meeqaa lagu tukan jiray mar haddii ay sidaas u muuqato waxaa loo baahan yahay sadar muuqda su'aal ka dhane inay dadaallada iyo talooyinka la bixinaayo ay qaataan oo masaajida laga qaato oo jaamacadaha laga qaato oo laga qaato iskuullada goobaha caafimaadka iyo dhammaan goobaha ganacsiga iyo bulshadoo dhan in la qaato haddii intaas aan sii sheegnay oo aan ku celcelinnay ee kadib weli ay soo taagan yihiin dadka maxaa la samaynaya dadka waa in la ciqaabaa imaanaysa marka ciqaabtu maxay noqonaysaa ganaaxa ku imaan doonaa dadka ayaan dhoweyd 1dii maaj marka arrintaa ka hadlaynay 1dii bishaan waxaan nidhi isbuuc kadib ayaa ganaax bilaaban doona haddana markii madaxda dawladda is aragtay waxa la yidhi isbuuc kale ha loogu sii kordhiyey marka 15ka bishaan ayay bilaaban doontaa ganaaxaasoo qof awaamiirti la siiyey ama taladii la siiyey khilaafay aan laga dhaafi doonin hadduu yahay goob ganacsi iyo hadduu yahay qof bi'el ama bajaaj saaran ama qof waddada maraya dhammaan bulshada soomaaliyeed ganaaxaas ayaa ku imaan doona qof kastoo talooyinka caafimaad ee la bixiyey jebiya waxaa la rabaa marka in laga taxadiro waxaa loola jeedaa ganaaxaas inay dadku ganaaxaas iyo ciqaabaadkaas ay ka cabsadaanoo ay laazimaan talooyinkii la siiyey marka ujeeddadeennu maanta intaas ayay ahayd bahda meediyaha maadaama maanta intooda badan ay joogaan ayagana waxaan ka codsanaynaa waxa dhammaanaya waa dadkiinnii oo aad aragtiin mar walba inaad markaa meediyaha adinku aad leedihiin hadduu yahay raadiye hadduu telefishin yahay haddii websayt wuxuu yahay ha ahaadee inaad kaalintiinna ka qaadataanoo aan hawsha lagu soo riixin dawladda oo kaliya maxaa yeele waa wax u baahan dhammaan bulshada soomaaliyeed inay si isku mid ah ugu gurmato arrintan waa masiibadu marna waa mid aadanuhu sameeyo sida qaraxyadoo kale marna waa mid minallaahi ah marka dhammaan masiibooyinkaas ayaa loo baahan yahay aragti isku mid ah iyo dadaal isku mid ah in lagu wajaho oo aan cid gaar ah laga sugin maaraynteeda